shalay waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ka degay wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. wafdiga waxaa qayb ka ahaa hogaamiyihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, xildhibaano labada aqal ah, wasiirro heer federaal ah iyo siyaasiyiin kale. safarkoodu wuxuu daba socday kulan ay dhawaan Muqdisho ku yeesheen xubnahan iyo hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdikaariyo Qorqor. ujeedka kulankaas hore iyo socdaalkan intuba waxay daaran yihiin dagaalka Al-Shabaab looga saarayo dalka, gaar ahaan deegaanada Galmudug. kulankii dhawaan Muqdisho ka dhacay waxaa lagu heshiiyey in Dhuusamareeb la isugu tago oo la dardargeliyo dagaalka. xubno ka mid ah wafdigan oo aan la hadalna waxay sheegeen inuu xalay dhacay kulan hordhac ah, laguna heshiiyey in qolo walba ay keento dadkii ku matali lahaa isku dubaridka hawsha iyo hogaaminta dagaalka. waxaa la filayaa inay si wada jir ah dagaal ugu dhawaaqaan madaxda heer gobol iyo kuwa heer federaal ee ku sugan xilligan magaalada Dhuusamareeb. waxay qaybsan doonaan gaadiidka, ciidanka, furimaha, qarashka iyo qorshaha. qolo walba waxaa la siin doonaa aag, waxaa la isku xidhi doonaa howlgalka, waxaana jirta kalsooni buuxda oo ay dhammaan madaxda ku qabaan inuu dhammaaday waqtigii Al-Shabaab sii joogi lahayd Galmudug, ayuu yidhi mid ka mid a madaxda ka qaybgalaysa wadatashyada ka socda Galmudug ee lagu dardargelinaya dagaalka oo aan la hadalnay. Axmed Cabdikaariyo Qorqor, inkastoo ay jiraan waxyaabo kale oo lagu duri kara maamulkiisa, haddana dhinaca kale waxaa la xaqiijiyey inuu maalmahan safka hore ka yahay qaadashada hoggaanka dagaalka iyo in Al-Shabaab laga xoreeyo deegaanka. dadku waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan aragno ka go'naanshihiisa oo ficil ah. Rooble, Guuleed iyo siyaasiyiinta kale ee tegay Dhuusamareeb waxaa la filayaa inay u sii gudbaan deegaanadooda gaarka ah si ay dagaalka ugu dhiirigeliyaan beelahooda. faa'iido badan ayaa ka dhex muuqata go'aankan ay siyaasiyiintan waaweyn ugu laabteen deegaanka. dadka gobollada dhexe oo badi caan ku ah mawduuca dagaalka waxaa la aaminsan yahay in haddii ay dagaalkan daacad ka noqdaan inay heli karaan hub iyo ciidan ku filan inay Al-Shabaab ka saaraan dhulkooda. madaxdani waxay keeni karaan inay xoojiyaan kalsoonida beelahooda iyo inay ku qanciyaan inaan waxba la hagran oo xoog 100% la geliyo dagaalka Al-Shabaab. si weyn ayaa loo soo dhoweeyey socdaalka xubnahan ay ku doonayaan inay ku dardargeliyaan dagaalka. Al-Shabaab waxay Galmudug ka haysataa magaalooyin waaweyn sida Xarardheere, Ceeldheer iyo Ceelbuur. laakiin marka laga cabir qaato abaabulka dhowrka dhinac kaga socda, waa ku adag tahay kooxdan inay sii haysato magaalooyinkan. marka la eego heerka ay Galmudug ku wajahaysa dagaalka, kulamada Muqdisho ka socda, diyaargarowga Cadalle iyo dagaalka Hiiraan, waxay dad badani qabaan in cimriga Al-Shabaab uu gunaanad yahay. maxay kula tahay adiga?